Sacuudiga ayaa dardargelinaya qorshe uu ku ballaarinayo shabakadda dhuumaha shidaalka ee gaara dekedaha ku yaala Badda Cas, iyadoo tallaabadan loo arko qayb ka mid ah istiraatiijiyadda muddo dheer socotay oo lagu xoojinayo amniga tamarta iyo awoodda dhoofinta shidaalka. Qorshahan ayaa la rumaysan yahay inuu kordhin doono mugga shidaalka si toos ah loogu dhoofin karo dekedaha Badda Cas, taasoo yareyn karta ku tiirsanaanta marin-biyoodka Hormuz. Marin-biyoodkan ayaa ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee ganacsiga tamarta caalamka, hase yeeshee marar badan waxaa saameeyay xiisadda siyaasadeed iyo kuwa amni ee gobolka Khaliijka. Khubarada arrimaha tamarta waxay aaminsan yihiin in Sacuudiga uu doonayo inuu yeesho waddooyin kale oo sugan oo uu shidaalkiisa ku gaarsiiyo suuqyada caalamka si uu u ilaashado joogtaynta dhoofinta haddii ay dhacaan carqalado ka yimaada marin-biyoodka Hormuz. Dhanka kale, ballaarinta kaabayaasha ayaa sidoo kale leh dhinac istiraatiiji ah. Badda Cas waxay sii noqonaysaa goob ay ku kulmaan danaha quwadaha gobolka iyo kuwa caalamka, iyadoo dalal badan ay maalgelin ku sameynayaan dekedo, marino ganacsi iyo kaabayaal muhiim ah. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli Imaaraadka Carabta uu sanadihii u dambeeyay si weyn u ballaariyay maalgashadiisa dekedaha iyo saadka badda ee dalal badan oo ku teedsan Badda Cas iyo Geeska Afrika. Taas ayaa abuurtay aragtida ah in labada dal ee ugu dhaqaalaha badan Khaliijka ay ku jiraan tartan ku saabsan saameynta ganacsiga iyo tan istiraatiijiyadeed ee gobolka. Badda Cas ayaa maanta noqotay marin muhiim u ah isu socodka ganacsiga caalamiga ah, waxaana sii kordhaya danaha ay ka leeyihiin dalalka gobolka iyo quwadaha waaweyn. Tani waxay ka dhigaysaa in maalgashayaasha dekedaha, dhuumaha shidaalka iyo kaabayaasha gaadiidka uu noqdo mid door weyn ka ciyaara tartanka istiraatiijiyadeed ee mustaqbalka. Guud ahaan, qorshaha Sacuudiga ee ballaarinta dhuumaha shidaalka ee gaara Badda Cas wuxuu muujinayaa dadaal lagu xoojinayo awoodda dhoofinta tamarta iyo dhimista khataraha ka imaan karta marin-biyoodka Hormuz. Isla markaana wuxuu iftiiminayaa sida Badda Cas ay u sii noqonayso goob ay ku loolamaan danaha dhaqaalaha iyo kuwa istiraatiijiyadeed ee dalalka gobolka, iyadoo jihada uu tartankaasi u wareegi doono ay ku xirnaan doonto isbedelada siyaasadeed, amni iyo dhaqaale ee sanadaha soo socda.